هذا البلد يوم تحينا برنامج فيه تيديو وحاليا شهر السنة الأول إن البريطان كطلب كإيرج البريطان كأكو الواقع لبك النظر ممكن الجهاد فيه لها أبوي وفروا هم وتقار بهم ولا إلى العقل هم هاي وتقار بهم ولا dadka qaar baa ay tahay himilooyinku inay magac helaan dadka qaarna ay hanti helaan dadka qaarna inay xagga ilaahay u dhawaadaan oo aad iyo aad u leh himilada koowaadee aanu anagu lahay daanu odayaasha nahay waxay ahayd inaanu marin rumayno in dhammaan beeshoo dhan meel isugu timaado taladeeda arrinkeeda horumarkeeda nabadeeda ay ka tashato alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sanado badan baa kasoo wareegay oo boqolaal sano ku dhow runtii alla u naxariistay odayaasha qaarkood ay lahaayeen shalay waxaan dhex fadhiisa maantaynu wada fadhinaa madan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaana rajaynayaa inaynu guul iyo horumar iyo nabad intaba ka gaari doono waxaan ku soo dhawaanayaa oo hadalkaa shirku uu uga furayahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa madasha furitaanka shirweynahaasi saddexaad ee beelaha carab ka hadlay waxaana suldaankan oo dhowaan lagu caleemo saaray gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco madashan uu ka jeediyay hadalkooda qowmiyadiisu ahayd horumarinta iyo isku duubnaanta beesha carab. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahad celinayaa dadweynaha aqbalay inay isugu yimaadaan madashan ee ay ka soo qayb galeen wadatashiga beelaha carab taasoo markii ugu horreysay annaga oo bariga caraba aanu kaga soo qayb galno annagu madaxda dowmeeda aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa ilaahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay iyo dadweynahaba sidii wanaagsaneyd ee looga soo dhaweeyey markii aanu soo gaadhay magaalada Beledweyne aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan filayaa dadweynahan isku nimay inaan sidii u sheegeen saadintii wadatima inaan meesha lagu fishanahay cid dhibaatana aan cid jeclayn ee horumarinta dadka iyo dalkaba geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maxamed xuseen xersi oo ku hadlayay afka guddiga qabanqaabada shirweynaha beesha carab iyo weliba maayarka caasimada gobolka Beledweyne Cabdi Imaan Faarax waxaana si isku mid ah mas'uuliyiintan isaga daba mareen muhiimada shirweynahan ugu fadhiyo beesha carab iyagoo u soo jeediyay ergooyinka kala gedisan ee shirkaasi ka soo qayb galay in ay ka soo saaraan shirkaasi wax miro dhala gunaanadkii xafladaasina waxaa hadalka soo gabagabeysay isla markaana halkan ka hadashay Adna Aadan Ismaaciil waxaana marwadu si ballaaran ugu mahadnaqsatay isla markaana ay tilmaantay sida laga waarmanka u tahay in beesha carab ay uga shaqeyn lahayd danaheeda sidoo kale waxay marwadu tilmaantay muhiimada gobolka Hawd ee maanta shirweynuhu ka furmay ugu fadhiyo dhismaha qaranka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hoosta ka xariiqday marwadu in dalkan xarunta gobolka Hawd ee Beledweyne ay tahay halkii laga yagleelay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana la'aanteed aanay timaadeen bay tiri in la helo dal la yiraahdo Soomaaliland hadaladeedina waxaa kamid ahaa $10 bishii lagu daa waxa lahayn guddi gudoomiye dhaxay macay waxa min han xadir sabara ahla ka soo saaray isay ku baa ka qaadi jiray kuwa kale todoba ka qaadi jiray isay ku baa waxa nasibano waxa laga soo dhax gashay waxyaabahan oo u baahanahay inaan maanta iska ilaalino ardayda waxa lagu fili jiray marka ma xaqiiq waalid ma leeyahay waalid shaqeeyo ma leeyahay haddii waalidkii shaqeeyada ardaygaas inaga mudna inaan lacag soo ururno laakiinse ka ama aroonka ah ama waalidkii aanu shaqeynin ama meel weeshna ka yahay ama uu xanuunsanayo ardaygaasina yahay arday natiijo wanaagsan keena oo jaamacadda uu ku jiro meel wanaagsan kaga jira kaasina wuxuu raadin jiray 3 iyo 4 bay ahayd waxaan soo dhex galay
هذا جيل هذا الواحد اللي جاي من كليه جيل هذا كلام واحد كنت أنا أفضل مها جيل هذا الأفضل يا شيء جيل هذا من وياش مرة واحد جيل هذا من وياش جيل هذا ما سبح وياش أما أفضل أقول وقالوا كها اليوم جيل هذا لا سبح يا أفضل يكسر الجلال أو عارف سبح يا أفضل أو صبورة أو أرضي ونعكس ما ضعي أو أيام كوسي وراوي isku xidhi doonta magaalooyinka Hargeysa iyo Beligubadle oo dhawaan dhismaheedu bilaabay waxaanay u soo jeedisay ergooyinkii kala gadisnaa ee halkaasi ka soo qayb galay inay u guntadaan isla markaasina ay u kacaan sidii ay wadadaasi u dhameystiri lahaayeen shirweynaha saddexaad ee maanta ka furmay xarunta gobolka Hawde ee Beligubadle isla markaana socon doona muddada 4 maalmood ee beelaha Arab ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawi degan iyo mid farxadeed iyadoo hadda Allah uu dalasan